الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan maanta waxaan doonayaa inaan ku qabto in yar oo ah taariikh nololeedkaygii oo dhalinyaro iyo asxaab ay iga dalbadeen bal inaan uga sheekeeyo waqtiyadii hore aan soo maray wixii aan ka xasuusto. waxay wax iga weydiiyeen waa taariikh dheer, ma wada dhamayn karo, laakiin wixii aan ka xasuusto ayuun baan halka idinku sheegi doonaa. marka ugu horeysa, anigu waxaan ku dhashay deegaankan iminka lagu yaqaano Buuhoodle, meelaan Buuhoodle ka fogeyn oo leeyahay Marqaan. erigii hore Marqaan weynaa la odhan jiray, laakiin iminka weynadii intay kasoo gaabiyeen ay Marqaan u yaqaaniin dhalinyaradu. meeshaasaan ku dhashay. taariikhda aan dhashay qiyaas ahaan sidii uun waalidka iyo igu sheegeen oona 40kii iyo wixii ka dambeeyey 1940kii ama 41kii 42kii meelaha. meel miyiga baan ku dhashay baadiye ah. waxaa la ii sheegay oo waalidku ii sheegeen maalinta aan dhashay in reerku geedi ahaa, hooyadiina ay fooshu qabatay iyadoo reerku soconayo oo geedi yahay. dabeedna iyadii iyo hooyo kale oo hooyooyinka ka umureeyo oo maaragtay dee khibradda leh meeshii lagu reebay halkii kaga umurisay, reerkeena gaadigiisii iska sii wartay. halkii anigu aan ku dhashay. galabtiina aabbe markii uu reerkii dejiyey uu u soo celiyey awr uu caano iyo biyo iyo ugu wado meeshii ugu yimid islaantii iyadoo wiil haysata iyo islaantii kale saaxiibadeed ahayd. sidii buu lagu caraabiyey, gurigii lagu geeyey. dhalashadaydi horta saasay ahayd. meeshuna meesha magacaale ahayd. iminka waa dhulka dhinaca kelinka raacsan, laakiin markaa dee dhulka dadku degay reer degaan uun ahayd, ama iminkadanba u ah. waxaan kusoo barbaaray markaa deegaanka u dhexeeya, inta u dhaxaysa dee ninkii dhulka yaqaana doollo dhulka la yidhaahdo, walwaal iyo wardheer iyo harooyinka iyo dhulka iyo inta cayn u dhaxaysa. intii aan yaraaya hore reer caymeed baanu ahayn. waxaan garanayaa annagoo beer agteeda kaga soo degan oo kaga soo aroorno wadaamagoo wada la yidhaha Shafgooye, caynaba kaga soo aroorno ayaan garanaya. bilweyntaasaan markii naqu uu ilaa Balidhiig waxaan ku soo gaari jiray markaa naqdurka. halkaasaan anigu ku garaadsaday, nin weyn waxgarad ah ku noqday. bilowgii waxgarashadaydii geel jiri ayaan ku bilaabay nolosha. anoo aan aada u sii weyneyn baa geel laygu kaxeeyey niman iga waaweynaa. geel ay halkaas igu hayn jireen, igu xanaanayn jireen, igaga warqabi jireen. dabeedna muddo kadib dee waan garaadsado, nin hawshii geela ka qayb galay baan noqday, ilaa aan ka gaadhay inaan markii dambe anigii laygu halleeyaba oon geeliiba anigu aan mararka qaarkood wixii aan haddaan colaadi jirin ama aan abaara jirin aan sidii kale ugu filaado. muddadaa kadib waxaan bilaabay
barashada qur-aanka kariimka dugsi baan galay arday fara badan oo dagaalkii ay wax ka baran jireen muddo ayaan halkaa qur-aanka ka baran jiray adugu muddo kadib qur-aankii waan dhameeyey markii aan qur-aankii dhameeyey oo muddo laga joogo aniguna markaa aan dee nin iska meel dhexaada ahay da-daydii waxaa dhacday inaan aniga laftayda macallin noqdadoo aan dugsi qabtado deegaanka aan macallin ka noqdado xoola laysiiyado geel iyo ariba laho aan muddo dhan ahaa nin macallin dugsigo xoolan adigu muddo markaan joogay hawshaa ma ahayn qasadkaygu ma ahayn inaan dhulkaa baadiyaha ku barbaaro waxaa niyada igaga jirtay inaan koonfur aado oo waxbarasho u aado markii aan muddo joogado ardadiina waxoogaa qur-aankii ii baratay ayaan maaragtay waxaan niyooday aanan meesha sii joogin marka wixii hanti ahaa laysiiyey waxaydii intaan isku hagaajiso hagaagsaday baan waxaan markaa u diyaar garooy inaan u gudbo wadanka koonfurta la yidhaaho magaaladii berigaa aan u dhaqaynay xamar laakiin iminka ku magac dheer dee muqdisho ayaan tegay muddo yar markaan joogay kadib halkaa waxaan ka bilaabay qasadkii aan u tegay meeshoo waxbarasho maaragtay iskool waxbarashadaydii markaa dee waxbarashadii hoose qur-aankana waan dhameeyey wixii kale oo maaragtay xataa kutubo yaryar oo fara badan oo xagga diiniga waan bartay waxaan ahaa xagga diinta markaa nin ka dhisan ayaan ahaa markaan meeshii tegay waxaan la kulmay niman masaari ah ayaa macallimiinka ahaa markaa muqdisho laba qolay ahaayeen waxaa la odhan jiray ashariyiin iyo bicsa tacliimiya qolana waxay ahayd niman diini ah iyo carabi dhigaa inta badan nimanna waxay ahaayeen niman maaragtay mawaadatan kale ee maadiga ah dhigay u badnaayeen aniga markaa maadaama aan waxbarashadeedii hore ay waxbaro diineed ahayd waxaan u leexday inaan iyadiisii korarsado waxaan imtixaan u galay machad la odhan jiray machad uddiini alazhari oo meeshan ashar la yidhaahdo xidhiidh la lahayd waa ka furnaa markaa muqdisho imtixaan baan galay dugsiga dhexe ayaan imtixaan u galay imtixaankii waan baasay galaaska koowaad ee dugsiga dhexe ayaan markaa halkaa ka bilaabay 4 sannadood baan dugsigaa qaatay shahaadadii dugsiga dhexe oo 4 sano ah ayaan halkaa ka qaatay shahaadada markaan qaatay waxaan ku wareegay dugsi kale oo dugsi sare ah oo machad tadaamun alislaami la odhan jiray sacuudi uu ka furay isaguna markaa muqdisho ka furay oo isagu dugsi sare ahaa kaasaan isagana imtixaan u galay galaaskii ugu horreeyay ee dugsiga sare ahaa baan ku guulaystay 3 sano ayaan isagana dhigtay oo ku dhameeyey meeshii isagii markaanu 3dii sano ee dugsiga saraha aanu dhammaynay waxaa markaa ka bilowday Soomaaliya waqtigii kacaankii bay ahayd meel la yidhaha xalane oo ardada dugsiga sare ka soo baxda ay gasho annaga qoladayadii machadkaa dhigan jirtay tadaamul islaamiga ee sacuudiga ka socotay waa naloo diiday sanadka ah inaanu gallo xalane inaanu gallo waxaana lagu cileeyey qoladii machadka mas-uuliyiinta ka ahayd iyo qoladii waxbarashada Soomaalida ayaa waxay dhaheen waxaanu ku heshiinay in waxbarashada la mideeyo oo waxbarashada beriga talyaani baa wax dhigi jiray oo carabta wax dhigi jirtay oo maaragtay sacuudiga oo masaarida oo in wixii oo dhan laga dhigo marka qaar waxaa lagu baran jiray carabi qaar ingiriisi qaar talyaani waxaas oo dhan oo kala wada duwan iskoolla ah waa ka furnaa marka in
iskooladii la mideeyo ayaa markaa midda kale dugsiga sare in laga wada dhigo 4 sannadood oo ka xukuumadda marka 4 sano ah marka qoladii carab ee sacuudiga mas-uulka ka ahaa iskoolka waanu wada hadalay bay yidhaahdeeno waxaanu ku heshiinay inay sanad idinku daraan maxay annaga ayagu 3 sannadood buu ahaa jaamacad islaamiya buu xidhiidh la lahaa manhajkiisu wuxuu ahaa 3 sano ahaa qoladii sacuudiga waxay yidhahdeen waa u dhammaynay muqararkii wax kaloo aanu hadda u dhignana dee annagu maba hayno maxaa yeelay iskool waliba wuxuu leeyahay muqararku hadduu dhammaado macallinku wax kaloo uu u dhigo ardayga mehnay qoladii soomaalida laakiin waa diideen waxay dhahan annaga sidaa xalaalo kuma geli karaan idinkaa yaqaan saa u gelaysaan qoladii sacuudiga waddankoodii baa looga yeedhado waxaa lagu yidhi iskoolkana soo xidha idinkuna ka imaada ardadaas iyo dowladdoodana u kala imaada say u geleen iyagaa yaqaan arrintii way nagu adkaatay annaga markaa macadka iyaga wuu xidhmay dugsigii meeshii aanu geli lahayn xalaanihii oo markaa ahayd dugsiga sareni kasoo baxa inuu galana waa naloo diiday waxaanu markaa isku daynay in aanu xidhiir la samayno wasaaraddii waxbarashada soomaalida oo markaa ka ahaa wasiirka ahaa nin la oran jiray cabdirasaaq maxamuud abubakar oo golihii sare ee kacaanka ka tirsan aniga iyo nin kale 2 nin oo kale oo biduu yahay ninkii la oranayay sheekh cumar faaruq yaa naloo diray wafti ahaanna loogu diray cabdirasaaq maxamuud abubakar xafiiskiisi baa loogu tagnay wuuna qaabilay qadiyaddii baanu ka wada hadalnay wuxuu yidhi ma yeerayno dugsi 3 sano ah in lagu galo xalane waxaanu idhi dee annaga wax noo haray ma jiro anaa idiin furaya buu yidhi dugsi galaaskii 4aad anaa idiin furaya sidii buu nagaga dhaweey ardadii way iska kala yaaceenoo dee wax arrintii iska ogolaaday iyo wax iska yaacay bay noqdeen marka dugsi sare oo 4 sano ah oo iyaguna markaa galaaskii 3aad ka soo baxay annagii baa la isku kaya daray sanad baanu qaadanay sidii baanu imtixaankii ku gallay kii baanu ku baasnay shahaadadii dugsiga sare oo dowladdaanu markaa halkaa ka qaadanay tii annaga nalaga xidhayna shahaadadeedii baanu sanadkii hore qaadanay sidaas 2 sano gudahood laba shahaado oo dugsi sare ah ayaanu qaadanay tii dowladdaanu markaa ku gallay xalane qiyaastii waxay ahayd markaan xalano galaynaa waxaan jeclahay inay ahayd 73 meelahaas ahayd sanad la dhow baan xalano ku jirnay dig iyo dab aanu ku jirnay tababar military unba weeye meesha xalane lagu sheegaya kuruud military ayay ahayd meesha hoyaatinku iyadu ahaa iyada laga cuntayn jiro iyada wax lagu baran jiro waxa la baranayaa hubka iyo waxay ahayd untaatikada sanadkii markaanu saa ku dhammaysanay waxaa naloo diray sanad kale oo la yidhaahdo national service la oran jiro waxaa weeye inaanu wax dhigno macallimiin noqono waanu dugsiyada hoose iyo dhexe aanu macallimiin ka noqono 1 sano sidii baanu sanadkaa kusoo dhammaynay anigu waxaan macallinka ahaa meesha ku magacaabanay soomaalidu ay u taqiinay allaahida oo masaaridu ay ku lahayd dugsiyada sare meel ka mid ah ayaanu dugsiga aanu ka dhigi jirnay dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe sanadkii saasaanu ku dhammaysanay sanadkii markii aanu dhammaadayna waana la qaybiyey wixii markaa xalane ka soo baxay waana la qaybiyey marka national serviceka la maro sanadkana lagu soo shaqeeyo marka sanadkaasi dhammaado ayaa la isugu yeeri jiray waa la qaybin jiray qayb aan nina la weydiinin meesha uu rabo nin walba nasiibkiisa meesha ugu dhaco aniga markaa waxaa laygu qoray wasaaradda gaadiidka badda kalluunka iyo gaadiidka badda anigoo ka tegey buuhoodle iyo hawd ka tegay oo weligayba aan bad arag weligayba badba aan arag ayaa la yidhi waxaad ku qoran tahay
wasaaradda kalluunka iyo gaadiidka badda. gaadiidka badda waa maraakiibta iyo doonyaha iyo waxa ku shaqale. qaybtii baana lagu dhuftay, meeshaas aanu kusoo baxa. isla markii aan lala qaybiyeyba bedel baa laygu dhufto